sharafta badan odayaasha dhaqanka iyo garaadada iyo boqaasha halkan isku soo baxay lagu soo dhaweeyey garoonka magaalada Muqdisho iyadoo qorraxda kulushahay oo milad u dhacay ayaa noo soo baxayeen waxaan rabaa inay kursiga dadka u sarreeya ayaan u ordaynay insha Allah waxaan idin sheegayaa insha Allah way isku qoraysan doonaa. Hello. Yes. Yes, I gave him his medication and everything, and he's sleeping. The other guy is coming late, and make sure you clean the house. Okay. Okay. Well, I clean outside and everything is good. Okay. Bye. Iyo managa مسقول كلين كرم مسقول نظيف كرنا يا مركز مسقول نظيف حاجة نظيف حلوة والبة يا حتى فهمي نروش خصب معها مسكح بها وبعند لعقته صومالي تعالى أنا فهمي صومالي وشغتي كانت حاجتها معي هلا قرحي قرمان قاعدين هنا أيوتادي إسلامتنا ناس آخر مرة كله تقولي واحد حاجة يعني قرشة في عمل نوعية وحتى هذا ناس آخر مرة كله يا دورش أقول كليه ما يبرنا قاعدة برنا تويسي دورش أقول كليه ودي كمان هذه تواسع أقول يدو العقد ولا بتشباره ما هو سؤالني معارضة iyadoo deel ajkala jibaarano garanaysaa adigu badna la hadbanaysi adigu noo soo hormari ku dheh ya noo soo hormari ku dheh okay hayawe I love you bye hadda fahmay bas ودنكي soo sharaxaya doorashan geli halkaas ay lacagta taala meesha sanaa inta la doorashan hada fahmay السلام عليكم ما في عطي حبيبي وربان كوهيا وحويان هذا waxaan soo socdaa airport kan hadda waxaan joogaa gas station airport koodh waan joogaa ma garata airport gas station joogaa marka waxaad samaysaa adigu haddaan baxayaa gaariga waxaad ka soo qaadataa waxaan kaga tagayaa gaariga baarkinka airport ka kaga tagayaa markaad shaqada ka soo baxdo ka soo qaad ma garata adigu gaariga airport ka soo qaad إن شاء الله قرحي العقد أنا يصادر لكن حمر تقول العقد أي صادر العقد أصادقه هذا اللي بتشبار ما هو سويني هذا مركز الدم بقى وجرته ما قرأت وده كبير العقد طالع هذا واحد هذا مركز بدنا نكتب سوقاته كسوقاته هذا برد لحد برنا يصادر ما قرأت برد هذا برد لحد
ayadoo laba jibaar ma kuu soo diraya ma garata adigu saas samee gaadhigan markaad shaqo ka soo qaado baarka airportka baarka ka soo qaado waxaan kuu soo markaan lambarkaan diraan kuu soo diri doonaa insha Allah lambarka meeshaan ku baarkin gareeyaan kuu soo diraya lambarkiisa insha Allah markaad waxaa ka soo qaado aywa بسم الله marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dadkan dadka khiyaarta sharafta badan odayaasha iyo dhaqanka iyo garaadada iyo cuqaasha halkan isugu soo baxay nagu soo dhaweeyay garoonka magaalada Muqdisho waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeyaan iyadoo qorraxda kulushahay oo milad u dhacayso ayaad noo soo baxdeen waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo waan idinka mahadceliyo soo dhaweynta aad noo samayseen waxa weeye insha Allah dib baynu soo imaanaynaa shir weyn baynu geli doonaa xaaladda dalkaynu mataqaanaa iska wareysan doonaa dalkani wuxuu u baahan yahay dad waxay qabanayaan garanaya aqoon u leh oo shaqada lagu aamini karo waxa weeyaan de anigana waad nala socotaan oo kursiga dalka u sarreeya ayaanu ordaynaa insha Allah waxaan idiin sheegayaa insha Allah adigu waynu isku wareysan doonaa waxaan rabaa in aad iyo aad idinka mahadceliyo weliba aanu mahadceliyo garaad Yuusuf inda gorongor oo aad iyo aad arrintan uga qayb qaatay iyo abaabulkan iyo mataqaanaa arrintan waxa weeyaan waa mahadsantahay mudane haddii ilaahay kuu roon yahay arrimaha dalka jira waan iska wareysanaynaa waxa weeyaan inagu dalka waynu ka xogogaal baynu ka nahay xaaladda dalka waxa weeye dadkan dad aqoon leh aqoon-yahano ayuu baahan yahay garanaya waxa ay qabanayaan iyo waxa ay mataqaanaa waxa ay qabanayaan iyo waxa hawlaha ay qabanayaan wadad takhasus leh ayaynu u baahannahay waxa weeyaan marka insha Allah aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya waynu is wareysan doonaa campaign-keeni iyo ololihii doorashada ayaynu bilaabaynaa waxa weeyaan haddii ilaahay idin roon yahay idigana waxaan idinka codsanayaa waxa la yidhi idina keligii meel ma mari karo waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina iyo cod iyo dhaqaale baad nagu taageertaan waaynu dalkan inagu meel u jaahayno aynu dalkan meel u jeedin waa sida ugu wanaagsan aynu dalkan ku badbaadin karayno dalkeenna waa loo soo shaqo tegay innaga unbaa badbaadin karayno aniguna garabkeenna ayaan ahay waxaan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan oo aad i doorataan oo ila shaqaysaan waa sida ay tahay marka qorraxda aad bay kulusha hadalka dheerayn maayo qorraxda aadu kulul hadalka dheerayn maayo insha Allah waa inooyo adigu maalmaha soo socda waan idin soo sheegi doonaa xilliga iyo meesha iyo taariikhda iyo waqtiga uu dhacayo shirka mataqaana shirka weyn ay isugu doono aynu ku dhow aynu ku iclaaminayno doorashada iyo tartankeena waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu